بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فما استراحت من عبور جعفر ومن صعود بصعيد زلقي إلا وفي خضخاض دمع عينها خاضت وغابت بسراب مطبق كأنما رغراقه بحر طبع والنوق أمواج عليه ترتقي وكل هودج على أقتابها مثل سفين ماخر أو زورق مرت بها هج الرياح فهي في تفرق حينا وحينا تلتقي وكم بصوت البغي سقت سوقها سوق المعنف الذي لم يتقي حتى غدت خوصا عجافا ضمرا أعناقها تشكو طويل العنق مرثومة الأيدي شكت فرط الوجا لكنها تشكو لغير مشفقي. طيب، وحين حليك تشوغني فما استراحت من عبور جعفر ومن صعود بصعيد زلقي إلا وفي خضخاض دمع عينها خاضت وغابت بسراب مطبق. inaanay hashu nasan geeli cafwan uu ninkaasi geela u heesayaa geel jiraha waday inaanu socodka u kala khafiifinoo markay socod dhammaysataba haddana uu socod kale u sii bilaabayay. saraabkii markaa dhalanteedkii uu beedka ugu dambeeya akhirkiisa ku gebagabeeyo inoo sheegay oo uu ina yidhi marka ay ilaa wa fii khadkhaadi damci cayniha khaadat wagaabat waxay ku libdhaysaa bisaraabin mutbiqin dhalanteed dhulka oo dhan qarinaya oo ka wada muuqda bay gelaysaa. marka saraabkiibu wuxuu rabaa inuu halkaa macno iyo tilmaan aad u qurux badan uu ka bixiyo dhalanteedka iyo geelu marka uu intuu fogaado ku libdho dhalanteedkaas qaabka uu u muuqanayo, qofka ka fog qaabka ugu muuqanayo uu tilmaan ka bixinaya. markaas wuxuu leeyahay kaannamaa raqraaquhu baxrun tamaan والنوق أمواج عليه ترتقي وكل هودج على أقتابها مثل سفين ماخر أو زورق كأنما وحد بأم ليس رقراقه بربرقيسا كأنما وحد أم ليس رقراقه بلنتاتك بربرقيسا أو بربرقيو بحر وحد أم ليس بد إنو يهي طما بحسمي بد سوب بحسنتي oo biyo ka soo buuxsantay baa birbiriqa halkaa kaaga muuqanaya dhalanteedka aad u malaynaysaa. wanuuqu halahaas ku libdhay dhalanteedkaasna waxaad u malaynaysaa amwaajun inay tahay mawjadaha badda aad u malaynaysaa. mawjadahaasoo calayhi dushiisa tartaqi ka sara martay. mawjado baddii markaas dhalanteedkii wuxuu ka dhigay bad, geelina wuxuu ka dhigay harihii wuxuu ka dhigay mawjadihii badda. marka mawjado dhalanteedkii badda oo kale ahaa ka dulmaray baad geelina u malaynaysaa. wa kullu hawdajin calaa aqtaabiha wa kullu hawdajin hawdaj kasta oo calaa aqtaabiha raxliyadeeda dul saaran waxaad u malaysaa mithlu safiinin maakhirin, mithlu safiinin doon maakhirin badda jeexaysa oo kale mid la mid ah, aw zawraqi ama laash ama doon yar oo badda dul maraysaad u malaysaa. meeshan marka saddex wax ku sifeeyey ama waxa la u ekaysiiyey. dhalanteedkii wuxuu ka dhigay bad, halihiina wuxuu ka dhigay mawjadihii badda. geela marka dumarku ay raacayaan hawdaj wax la yidhaahdaa loo samayn jiray oo xagga sare geela gurada sare looga samayn jiray. hawdajkii marka xagga sare saarnaayeenoo dumarkii geelaasi wadeen ku dhex jirayna waxaad u malaysaa inuu yahay doon ayaad u malaynaysaa. markaa sidaa u fiiriso dhalanteedkii waa bad, geeliina wuxuu noqday mawjado. geela hawdajka dul saaranna waa maxay? mawjadahaasi ba halkii sii dul saaran waxaa la yidhaahdo hawdajyo sii dul saaran waxa leeyahay cafwan doomo sii dul saaran ayuu ku sifeynayaa. nacam. marka kaanama raqraaqu waxaa la yidhaahdaa raqraaqu saraabi maa tala'la'a minhu waxa birbirqa ayaa la yidhaahdaa oo markaa marna taga marna yimaada birbirqiisu marna tagay marna imanayo. carabtuna waxay ku mahmahdaa araqu min raqraaqi saraabi, wuxuu kasii dabacsan yahay oo kasii birbiriq badan yahay birbiriqa uu bixiyo dhalanteedku. waaye baxriga baxrun tama waxa weeye tamal baxru marka la yiraahdo imtala'a
طمل الماء وهدي اللي يرهدنا علاوي وسكر مرة أما بدو وبحسنتي أي نقنسة الأمواج هو جمع موج جمع موج وي طيب مركا موج هو حويا أصل كيس هو موجة أو مركي يعني واحد متكيس كليه هو موجة وأنا مصدر أصل كيس لكن مقعني ماذا كحيق بلطي أو بيهن رباحية أو بدو صوكي عنا سي موجة هذا مقعهان لو بحي طيب ارتقاء هو كوريتانكا يو السعود كيف كوريتانكا وي أقطابته حوية رحلية نفكر مركا الراعي يو جيلا أو قف فوليو نقدر الصومالي هان واجوجي نجيل الراعي وحا لسارة ميل لوغو تلقلايو قفك وكفر سنايو مركا واجمعو قطب كنا مركا ورحلة يرو وقفك وكفر سنايو طيب سفين كان وحوية جمع سفينة لكن هل كان وانا اسم جنسي جمعية هل كان لكن مفرد بولتشي هذا صابته تلمامها أو راعية وتلمامه مفرد وي مركا مفردون بولتشي هذا يعني هل دون أو كلا أي نقطة طيب ويحيي شيخ مركا كأنما واحد مودا رقاقه دلنتاد كا ماشاسي كبخايا واحد عفوا بربرقه كبخايا واحد مودا دلنتاد كاسي بحر بد طما بحسنتي والنوق هلها واحد مودا دلنتاد كاسي كل بلاي امواج موجوده عليه دشيسه ترتقي كسر مرتي وكل هودج كستا وهلها صار واحد مودا على اقطابها دحليgeeda كسي سريه واحد مودا مثل سفير ماخر مثل سفير دون ماخر مخره بمعنى شقوي بدونت مخرة السفينة البحر دي ليلة أي شقت وي تشحذي وي بحيزومها أفكار هراي كتشحذي بيه ساس وكل دمبلسا سيدي وحلة شيء حيو كله بيها ساس وكل دمبلسا نعم أو زورق ونوالاش كام دون تير أي ليلة هذا طيب وحلو وكم بصوت البغي سوقها سوق المعنف الذي لم يتقي وكم وحبضا يا إذن كم يا نعم مرت بها هجر الرياح فهي في تفرق حينا وحينا تلتقي مرت بها وحمرتي هجر الرياح دبيره بلا شهدها قالي أو سيدي دومو وحلي راه بد دول صارن او كلا او كدغاي باي دبيل كسو دبات مرت بها وحا كسو دباتay oo soo martay hujur riyaahi dabaylo bila jiha dabayshu marna hal jihay u socotaa dhinacay doonto waxa u socotee marna meeshay doontay ka timaadaayo jiho muayyan oo ma socoto xagga iyo xagga waa ka dhabataa marka hujku waxa la yiraahdaa waa dabaysha aan dhinac kaliya ah u soconay dhinac kasta ka timaada فهي في تفرق فهي واحد مودا هلهاس ومركا دومو uu ku shabahay في تفرق فهي في تفرق kuwa kala tagaya weeye xiinan mar وحينا مرنا تلتقي وكل ميسا marka doomihi oo halihi oo doomo oo kala ah oo dhalanteedkii ku libdhay oo bad oo kala saaran ayaa dabayl ku dhabatay markaas waxaad moodaa in marna isu tagayaan marna kala tagayaan dabayshii marna isu keenaysa marna kala geenaysa marka waxaad moodaa markuu dhalanteedku marka aad shaygu aw ka fog yahay oo dhalanteedka uu ku dhex jiro inuu dhaqdhaqaaqayo moodaayo waxa la yiraahdo midig iyo bidix ku kala dhaqdhaqaaqayo saasoo kale uu ka wada waxaan moodaa marka inay doontii oo badda dul saaran intay dabayl ku dhabatay marna dabayshu dhinaca doonta u leexinayso marna marka wuxuu ka shabahayaa hashaasi geelaasi libdhay oo ku dhex jira dhalanteedkaas siday u dhaqdhaqaaqayo ay wuxuu ka shabahayaa doon bad saaran oo dabayl marna dhinaca kaga dhabanayso marna dhinacan oo marba dhinac u dhaqaajinayso oo kale marati biha waxa ku dhabatay hujur riyaahi dabaylo bila jiha طيب فهي في تفرق فهي هلهاس وحويه في تفرق كومر كلا تغيا حين المر وحين المرنا تلتقي كو كل ميا وكم بدنا بصوت البغي حد قدب جيدا الكيس سوقت إناد كو أروريسي سوقها لوهيدا سوق المعنف أرورينتا كي أن ترى لها لهين أن ترينين الذي كاسو لم يتقي ربي كان كعب سنين حتى إلى غدت أين أهاتي أي صارت أي نقطة أهاتي خوصا هلهاس أي نقطة خوصا مد إندقدن عجافا عاطئة ضمرا بقلالا وجمع ضامر ضمرا بقلالا أعناقها قورتيدو أعناقها قورهيدو سرركيدو تشكو أي كعبنا يسو طويل العناق صعد كدير طويل العناق صعد كدير العنق وحوي نوع كمد قابك لو صعد يا ناقو سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح وكي بيتك شواهد نحوها كجري ورين جري طيب marka عنق waa nooc socodka kamid weey wuxuu leeyahay geelibu wuxuu ku soo noqday ninkii
geela waday wuxuu leeyahay in badan baad jeedal xadgudub ah geelaa la dhacday oo aad waxaa la yidhaha jeeniga kala dhacday oo aad u kaxaysay sida nin aan tudhaalo lahayn oo rabbigii ka baqaynin geelan inuu maalinka qiyaame ka dacwoodo inuu waxa la yidhaahdo lagu ciqaabo adduunyo nin qof aan tudhaalaba lahayn geela aad u kaxaysay si aad u xuna u daran nacam ilaa uu noqday halihii sida dee socodkii faraha badnaa ee dhibka lahaa ee jeedalka badan la dhacayay ilaa intay gaajootay indhihii godmeen oo ay waxa la yidhahdo bog laalantay oo ay noqotay waxa la yidhaahdo mid cijaafan caato ah nacam acnaaquha tashkuu tawiila alcanaqi qoorteedu ay ka cabanayso qoori ma cabato lakin waa isticaaro qoorteedu siday waxa la yidhahdo u soconaysaba waxay ka cabatay socodka dheer acnaaquhaa marka acnaaq iyo canaq waa jinaas aan taam ahayn baa meesha ku jira jinaas aan taam ahayn ayaa ku jira ayib wakam bisawti lbaqyi wakam waxaa badan bisawti lbaqyi inta aad xadgudub jeedalkii suqta aad ku aroorisay suuqaha lugaheeda jeeniyaheeda sawqal mucanifi midaan tudhaalo lahayn aroorintii sawqal mucanifi midaan tudhaalo lahayn aroorintiis oo kale ay ka sawqihi alladii kaasoo lam yabtaqi rabbigii aan ka baqaynin waaye xataa ilaa oo qadad ay noqotay halahaasi khuusan mid indha godgodan cijaafan caato ah dummaran boglaalan acnaaquhaa qooraheedu tashkuu ay ka cabanayso tawiila alcanaqi socodka dheer ay ka cabanayso waaye wuxuu yidhi marhuumat alaydi nacam مرثومة الأيدي شكت فرط الوجه لكنها تشكو لغير مشفق مرثومة الأيدي iyadoo ah beedkan markaa beedadkii hore la sii socdaayo dhibkii halaha u geystay uu kasii warbixinayaa marhuumat alaydi iyadoo halahaasi ah kuwo lugaheeda ay dildilaaceen oo dhiigayaan marhuumat alaydi kuwo lugihii intay dildilaaceen ay dhiigayaan marhuumadu marka waxa weeyaan luguhu markay dildilaacaan oo dhiiga ay keenaan min arrafmi rafmiguna asal ahaan waxa weeye sanka qofka marka la jabiyo oo dhiigu ka yimaado hunugku ka yimaado sanka marka la jabiyo kadib ayaa la yidhaahdaa kadibna wax kastoo inta uu dilaaco dhiig ka yimaado ama jabo dhiig ka yimaado ayaa lagu itlaaqay ayib marka marhuumat alaydi halahaasoo ah mid lugaheedu dildilaac awgeed ay u dhiigayaan taasoo shakad ka cabanaysa fardal wajaa xanuun darnaantiis fardal wajaa xanuun alwajaa waa xanuun weliba xanuun oo dhanna maaha waa xanuun lugaha ku dhaca xanuun geela xoolaha lugaha kaga dhaca ayaa la yidhaahdaa weliba lugtoo dhanna maaha hadda cugufta yar hoosuu ay ku istaagayso geelu ku istaagayaan halkaasi kaga dhacda ayib marka waxay ka cabanaysaa fardal wajaa xanuunkaa lugaha kaga dhacay siday u soconaysabaa xanuunkii lugaha kaga dhici jiray xoolahaas intay ku dhaceen bay xanuunsanayaan xanuun bay ka cabanaysaa laakinaha hase ahaatee haba cabatee tashkuu waxay u cabanaysaa ligayri mushfiqin midaan uba turaynin hadday intay cabato mid u turay u caban lahayd waxba kama dhibteen laakiin waxay u cabanaysaa midaan u turaynoo aan uba joojinaynin oo u sii wadaya xanuunkii isagoo hayo ku sii wadaya wixii xanuunkan ku keenay marhuumat alaydi shakad fardal wajaa marhuumata miday dildilaaceen iyadoo ah dhiigayaan alaydi lugaha marhuumat alaydi luguhu miday dhiigayaan dildilaaca awgeed shakad fardal wajaa shakad ka cabanaysa fardal wajaa xanuun darnaantiisa xanuunka lugaha ku dhaca darnaantiisa ka cabanaysa laakinaha hase ahaatee tashkuu waxa ay u cabanaysaa dimaha kaga dhaca xanuunka dimaha ku dhaca iyadoo ka cabanaysa laakinaha hase ahaatee tashkuu waxay u cabanaysaa ligayri mushfiqin midaan tudhaalo lahayn ayay u cabanaysaa waaye wuxuu yidhi qad dahabat minha almaxaasinu biidmaani sura waqilati abyaadda hore wuxuu kuu soo sheegay dhibaatooyinkii geelan ku dhacay oo faahfaahsan lugihii waxbaa ku dhacay indhihii waa gudmeen waa caatowday boggii baa laalmay dhibaatooyin fara badan waxay ka cabatay daal dhibaatooyinkii oo faahfaahsan buu kuu soo sheegay beydkan wuxuu isku soo duuduubayaa wax allaale iyo wixii dhib ahaa oo dhan bayba ka cabanaysaa dhib oo dhan baaba haya ayuu rabaa halkan inuu yidhaahdo marka waa ijmaalun bacda tafsiil faahfaahintii hore uu kuu soo sheegay ayuu halkana ku duuduubaya qad dahabat minha almaxaasinu biidmaani sura waqilati tarafuqi qad dahabat waxaa ka tegey halahaas minha halaha waxaa ka tegey almaxaasinu wanaagyaashii wixii geel lagu xulan jiray ee ay wanaag lahaayeen oo dhan baa socodkii dheeraa awgeeda uga tegey waxayna uga tageen biidmaani suraa guurayn inay joogtaynta ay joogtaysay guuraha ayay uga tageen iyo waqilati tarafuqi
turitaan yaraan inay turitaanku u turayo qofkii kii waday oo aad u yar yahay awgeed ayay uga tageen marka qad dahabat minha almaxaasinu wax kastoo la wanaajisto oo geela lagu xusho oo qaarkood waliba inoo keeni doono hadda ka annaha lam taku qablun tuqbinu leeyahay waxyaabaha uu inoo keeni doono oo dhan bay wanaagga ahaa waxayba uga tageenba oo ay ku baabi'een dhibkii loo geysanayay marka dhibkii loo geysanayay buu labo ka soo qaadayo warta waa socodkii iyo turaan la'aantii intaasuunba ku soo koobay wixii dhibaha ku dhacay labada sababood biidmaani sura guuraha ay waxa la yiraahdo daa'imtay idmaanku waa daa'imitaanka weeye mulaazamada sheegu markuusan qof wuxuu ka dhamaanin ayaa la yiraahdaa tayib waqillati tarafuqi iyo turaan la'aan qad dahabat iyadoo ay ka tagtay minhaa halahaas almaxaasinu maxaasintii wixii wanaagsanaa ee lagu xulan lahaa waxayna uga tagtay biidmaani sura guuro ay daa'imtay guuro ay waxa la yiraahdo daa'imtay waqillati tarafuqi turaale yaraan awgeed ay uga tagtay kaannaha waxaad moodaa halahaasi haddaba kaannaha waxaad moodaa lam taku inaanay ahayn qablu hadda ka hor untukhibat mid laga soo xushay min kulli qarwaa'a hal kasta ama geel kasta oo qarwaa'a kurs dheer raquubin korasho badan funuqin buuran oo waxa la hilib badan dawsaratin weyn hawjaa'a socod badan wajnaa adag ama koodad weyn maa bihaa uusan ku sugnayn min naqabin cuguf yari wa min wajan xanuunka lugaha ku dhacaya wejiga la yidhaahdo iyo wa saraqin uusan ku sugnayn raad ka soo bax saraqu waxaa la yidhaahdaa atharu dabadat albaciir dabaradu waa qurxooyinka iyo finanka ama kasoo baxyada geela ka soo baxa ayaa la yidhaahdaa marka raadku ka tago ayaa waxaa la yidhahdaa saraq nacam ama xariga lagu cayminayo oo waxa la yiraahdo geela lagu raro xariga marka lagu xirayo ayaa waxa la yiraahdo raadku ka tago taana waa la oran karaya waa la yiraahdo tayib marka geelan markaad u fiirsato dhibka soo gaaray iyo siday noqdeen waxaad moodaa inaysan ahayn geeli markii hore sida xulka ah lagu soo kaxeystay oo lagu soo qaatay geelu markii hore waxa geel xul ah waxa laga soo dhaxushay halo oo lagu soo xushay sifooyin fara badan sifooyinka lagu soo xushay waxa kamid ah uu inoo tilmaamay qarwaagu marka waxa weeye qabiilatu sanam mid kurs dheer geelu kurs markuu kurs weyn yahay ama waa geel yani aad bay u jeclaayeen carabtu Soomaalida laftirkoodu waa saas hasha kurska weyn tayib qarwaa raquubtu waxa la yiraahdaa hasha kurashada badan kurashada waxa laga wadaa geelu marka uu soo waxa la arooro meesha uu ka cabayo ceelku ka cabayo way soo ololaan biyaha marka way isku xiriiriyaan hal baa jirta marka aan raacina sugta intay marka hore kuwan ka cabayaan hadhow markay kuwan cabaan ba iyadu gashaa marka waxay yiraahdeen waa kariima waxa la yiraahdo waa waxa la isku haysto baynacaysayo markaasay sugaysaa marka karam iyo waxa la yiraahdo waa sifo wanaagsan tilmaan wanaagsan oo hashaas ay leedahay weey ammaan weey marka tayib raquuba marka la yiraahdo funuqu waa hasha hilibka badan baa la yiraahdaa alfatiyatu samina tayib dawsaradu waa hasha weyn الناقة الضخمة العظيمة بيرهده هشة وين بيرهده الوجناء لو معنا لو معنين كريا هشة كودت كوين حكوا لو معنين كريا هشة أذك أي لو معنين كريا طرف وكيكو شري معلقة جمانية وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعار أربدي سوسامة هاي طيب وجناء مركا وهشاس نقب كوا حنون وحليه وعيب جيل كدعة أو مركا حنون ما هو عيب جيل كدعة أو عقفت جيلو مركاي صعد انتي صعد كبديسو اي يراتو اي لا يراهدا عقفت ku soconayso markay yaraato way marka de soo ma socon karayso tayib marka wariba markay ku yaraato marka dhul adag oo gadiid ah ay aad ugu socoto ayay yaraataa bay yiraahdeen marka waa ceeb weey oo fiiridaas tayib naqib bale marka waa min naqaban ficilku weey naqab وكي كجرى رجسك أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر نعم فاغفر لهم اللهم إن كان فجر وحي مركا نقب كوكاس وجا وحنون كان هذا سو شيء إنه جيل الدماء كجدعة سلقنا واشيء إنه هو كصباح جيل كصباح مركو كلنا تو مركا هل حنون هراء كصباح يوحى جيل مركو هراء حنون نوعه وكلا كسر يشري معه جيل عفمات قبي ويامبو ربنا كبيرة طيب
marka geeli wuxuu rabaa geeli wanaagsanaaye intaasoo sifo oo wanaagsan lahaa waxaad moodaa inaysan waxaa midba kala hayno geel waxa la yiraahdo waxaasoo sifooyina midna aan yeelan ayaad moodaa sidii aad u daalisay aad u socodsiinaysay tudaal la'aantaadii ninkiiba markaa weli canaananaya kaannaha lam taku qabla kaannaha waxaad u moodaa lam taku inaanay ahayn taku markaa waa kaanadii oo majzuuma ah naam nuuntana waxaa loo xadfay jawaazan لزوما ما طيب كانها لم تكن قبل ان تكمل قبل هذا كهرنا انا هين باد بمودا انتخبت مثل لغا سو دخو شيء من كل قرواء قال كستو او قرواء كرس دير او رقوب كرشه بدن marka la yimaado ceelka laga cabayo funuq hilib badan dawsaratin weyn hawjaa waxa la yiraahdo socod dheer hawjaa socodka ku dheeraysa ee la yiraahdo wati hada ku soo tilmaamayay dabayshana ku tilmaamay oo dabaysha marba dhinac ka dhabanaysa marka hawajku asal ahaan waxa weeyaan socoshada aan korashada lahayn nooc xumqiga ah ku jiro ayaa la yiraahdaa nacsimada ku jirto sida yaani orodka aan ka fiirsashada lahayn loo ordo ayaa la yiraahdaa tayib wajna ma biha wajnadu waa taadag ma biha min naqab aan ku sugnayn naqabku waa ugu fiiri wa min waja iyo xanuunkaas iyo wasalaqin inta midna aysan ku sugnayn waaya من بعد ما كانت هنيدة غدت أكثر من ذود ودون شنق من بعد ما كانت مركي أهيد كدب هنيدة بقل لها سات راعدي وآد كحيسي وآد كوهيستي وميل كستمريسي وآد لبتي بقل مركي أهيد كدب أي غدت وحي نقطي أكثر متك بدن من ذود صدح إلى طبعا انت وضع حيسك بدن ودون وكهوسيسو كير شنق انت اللي بفرل وسكاء وضع حيسك كير geela wuxuu yiri markii hore geelu wuxuu u dhibaatooday tilmaan ahaan hashi haday buurnayd waa caatowday waa haraaday socodkiiba ku dhibaatootay tilmaantii geela naqsi marka xagga tilmaamaha galay oo markii hore inoo sheegay halkan wuxuu leeyahay geeli dhinaca kaliya kamaysan gelinin dhibku dhibku wuxuu ka galay hatta iyadii laftirkoodii inay wax fara badan oo kamid ah baqtiyeen socodkii dheeraa iyo dhibkii iyo turan la'aantii geeli wax badan oo kamid ah baqtiyeen oo geelu markii hore boqol buu aad ka haysay waxa ka soo haray wax yaroo 3 ilaa 10 dawladka waxa la yiraahdaa 3 ilaa 10 halaha u dhaxeeya la yiraahdaa 3 ilaa 10 arabtuna waxay ku mahmaahdaan min الذود الى الذود ibil marka wax yar loo geeyo waa hadii aad qof ka soo qaadato 3 halaad midna 4 midna 5 midna 10 midna 3 midna 4 maxay isku noqonaysaa marka dambe digeel buu isku tagayaa fara badan marka dawdu ila dawdu ibil waxay ka wadaan hadii wax yar loo geeyo marka muxuu noqdaa wax fara badan buu noqdaa tayib marka dawdku waxa weeye halaha u dhaxeeya 3 ilaa 10 ayaa la yiraahdaa wixii inta u dhaxeeya marka wax intaana ka badan shanaqana ka shanaqu waa waqsiga kale yiraahdo waqsiga waa laba faral ilaa faralka kale geela inta u dhaxaysa 25 ilaa 35 inta u dhaxaysa ayaa la yiraahdaa tayib waa markay geelu gaaro ama ay gaaraan xooluhu gaaro aan laga qaadin siko inta sariya shana naam min bacdi ma kanat hunayda marka waxa weeye hunayda iyo hinduba hind waxa weeye boqolka geela baa la yiraahdaa hind marka asal ahaan geela boqolka baa la yiraahdaa kadibna dadka ayaa magac looga dhigay ragna carabtu way yiraahdaan dumarkana way yiraahdaan Soomaalidu dumar bay ula baxdaa waaya hind ibn abi hala soo ma ahayn rabiib nabi sallallahu alayhi wasallam oo wasfiga aadka u qiimaha badan ka bixiyay خديجة والكيدي هند بن بهالة من بعد ما كانت هنيدة غدت من بعد ما كانت مركي أهيد كذب هنيدة بقل غدت وحي أهاتي أكثر من دود صدح إلى طبعا وح كبضا ودون شنق انت ودحي سلبا فرلا كير وأنقاريني أنا هو قيري ركوبا ولا باتمية أما سدومية وحساس وكلا وأن بضنين بابغلكي قيل هات كسور ريبتي انت كان جدك كسور بختيين وحسنا وحكينيا سعود كان ديرة توران لأنتها ايوه dhibkanaad geela marinayso ayaa keenaya waayo wuxuu yiri wa inta maadayta ala itaabiha walam takun muntahiyan an rahaqi intii hore oo dhan wuxuu soo tilmaamay waxa la yiraahdo geela dhibkiisii marka bal inuu wax ku qaato ninkii geela raaciyay dhibkiibu u tilmaamay hadda dhinac kale wuxuu ka tusaaleynayaa wuxuu leeyahay haddaad dhibkan ku sii wado adiga uunba ka shalayn doona bas raba inuu yiraahdo وإن تماديت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن رحيقه وإن تماديت هدات سي جوجتيسو تماديت هدات سي جوجتيسو سي لاسمتو على إتعابها إن تجيل دبته ولم يكن منتهيا ولم تكن آذن نقول منتهيا مت كربتون هذا
can rahaqin geelan dirqintiisa haddaadan ka reebtoonaan fasawfa tacruuka waxaa kugu dhici doona ku haleeli doona calaa itlaafiha waxaa ku haleeli doona calaa itlaafiha baaba'a geelaasi aad baabi'isay awgeed waxaa ku haleeli doonta nadaamatu lkusciyi kusaci ninkii la odhan jiray kusaci weeye lidaruurati lbeyt buuna siinka u reebay laakiin isaga waa kusaci nadaamatu lkusciyi ninkii kusaci ahaa nadaamadiisii iyo waxaa la yidhaahdo murugadii uu ka murugooday dhibkii ku dhacay iyo walfarasdaqi farasdaq murugadiisii oo kale iyo shalaygiisii ayaa ku qabsan doona wuxuu leeyahay markaa geelan haddii aad sidaa kusii wado heblow ninkaasuu la hadlayo haddaad geela sidaa kusii wado oo aadan dirqintan iyo dhibkan aad geela ku wado iyo meel kastoo adag oo dhib ah aad ku aroorinayso aadan ka joojinin markay geela hadhow baaba'o waxaad ka nadaamoon doontaa u shallayn doontaa siday u shalleeyeen ninkii la odhan jiray kusaci iyo ninkii farasdaq ahaa kusacigani waxaa la odhan jiray muxaarib ibnu qays waa reer yaman buu ahaa waxay yidhaahdeen isagoo xoolo uu leeyahay iskala jooga ayuu geed fiican oo bahalkii waxaa la yidhaahdo qawska laga samaysan karayo ayuu helay markaasuu geedkii qoray wuu qoray mudduu qoranayey qaws aad u fiican ayuu ka samaystay laamihii yaryaraa ee qoryihii yaryaraa ee dhulka uga dhacdhacayna wuxuu ka samaystay fallaadho fiican bahashi markuu sidaa u eegay aad bay u cajabisay marka ilaa 5 fallaadhood buu samaystay iyo qaws aad u fiican markii dambe isagoo geed iska hoos hurda baa wuxuu ka war helay dameer farow agtiisa yaacaya bahalkii intuu qaatay buu ku ganay marka fallaadhii intay dameer farowgii ku ganay intay ka dhex baxday ku dhacdo ka dhex baxday bay buur dhinacan kale ka xigtaa dhagaxii ku dhacday dhagaxii markay ku dhacday markaa birtu markay dhagaxa ku dhacdo maxay samaysaa finin yaroo oo dab ah oo kale ayay samaysaa marka finin yaroo dab ay bixis wuxuu u maleeyay markaa inay bahashi dhaaftay oo uusan ku dhicinin dameerkii uu tooganayay ama uu ganayay mar labaad buu isla kala jiiday mid kale intuu fiirsaday sidii oo kale mar saddexaad mar afraad mar shanaad riwaayaadka qaarna waxay leeyihiin 3 jeer buu tuuray qaarna waxay leeyihiin wuxuu tuuray 5 jeer buu tuuray markii uu dambeysay wuxuu leeyahay ma baalu sahmi yuqidu al-hubaahiba qad kuntu arju an yakuna saa'iba waxa yani maxaa ku dhacay sahamkii aan islaha waa fallaadhi aan islaha wax ka fiican qowska samaystay bahal ka fiican ma jiro aan mahadiyay waxa weey muxuu la finiinka bixinaya uusan waxba u asiibaynin bahalkii intuu qabtay buu markaa kala jabiyay wuxuu yiraahdo wax faa'iido ah iimalay muddo markuu joogay oo bahalkii kala carareen buu meeshii yimid sa shamba lagdan shanta markaa bahalka intuu ku dhaco ka baxa markaasuu ka soo go'a waxa la yiraahdo buurta markaasuu isna markuu buurta finiinka arko wuxuu yiraahdaa kumuusan dhicina deelan hadduu bahalku jirkii wuxuu dhex marayaa moogtahay haraggii iyo jiirkii iyo wuxuu hilibuu dhex marayaa marka wuu qaboobaya markuu qaboobana xataa hadduu ama afku kala jeesanaya ama intuu ka baxo buu meel dhow ku dhacaya laakiin inuu buurta isagoo xoog leh bahalku yani finiinka waxaa bixiya bahal xoog leh baa bixiya finiin laakiin marka wuxuu marayay inuusan waxba ku dhacaynin halkaa markuu arkay buu markaa aad u shalleeyey laba meelis baa markaa laga haya nadimtu nadaamatan low anna nafsi تطاوعني إذن لقطعت 5 مركو أركي 5 حبو ماشي يالا بوصولك قنينة بيراهن سولك بو اسجر جبيكي سبب قنينة دي وعيلكي شرليدي بوصولك اسجر ويوم يعض الظالم عليه دي طيب مركزو حوليه ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذن لقطعت 5 وحن شرليتان هذين نفتو يغيري لهي 5 فراد بو اسجر لها بوير 5 فراد بو اسجر لها تبين لي سفاه الرأي مني لعمر أبيك حين كسرت قوسي مركان قوسك اسك جبينيي marka wuxuu ka nadaamoonayaa waa maxay qowskii fiicnaaye uu iska jabiyay buu ka nadaamoonayaa marka ninkaas waa muharib ibn qayso arabtu marka nidaamatul kusaci waxay u soo qaataan am andamu min al kusaci marka yiraahdaan wuxuu ka shallayto badan yahay kusaci ninkii la oran jiray qofku intuu wax sameeyo hadhow ka shallaaya bay arabtu mahmahaan ugu soo qaataan ninka kalena andamu min al farasdaq weeye farasdaq wana had garanaysan oo wax la shaacirka aha همام أما هميم ابن غالب ابن صعصعة بالورنشري وحي رهيان فرزدق وحي قورسدي قبل إن هديرتي سهو النوار بنت أعين ابن ضبيعة بالورنشري
naadartii bay ahayd marka qaabkuu guursaday sheeko dheer bay ahayd oo ma wada geli karayno laakiin iyadaa isagaa ugu dhowaa wax qaraabadiisa ah kuwa kale oo dhanna masaafatulqasri wax ka fog bay jireen marka nin bay adigu isdamaaciyeen waxay ku tiri Farisdaqow ninkaas igu meheri bay ku tiri markaas wuxuu kugu meherin maayo ilaa aad yani meel gola ah oo la joogo ka markhaati geliso inaad wilaayadaadii aniga igu wareejisay haye bay tiri wilaayadii bay ku wareejisay isaga marka golihiiba markaa ka dhex hadlay labadii reerood hala sugu yeedhaa la yidhi xagga iyo xaggaba waa lasoo saftay markii golihii lasoo fadhiistay wuxuu yidhi soo ma ogidin inay gabadhii Nawaar ahayd igu wareejisay wilaayadeedii ha waxaan idin markhaati gelinaya inaan anigu isu meheriyey buu yidhi anaa isu meheriyey saasaan salaanteedi ku noqotay meeshii markaa waxaa ka dhacay nufra salaantu waa xanaaqday gabadhii Nawaar ahayd way xanaaqday aad baa loo kala dacwooday waxay isla aadeen markii dambe markii cid kale wax u qabatay la waayey Abdullah ibn Zubayr iyo Makka bay isla aadeen Abdullah ibn Zubayr markaa Nawaar baa horreysay kadibna waxay ku degtay Abdullah ibn Zubayr hooyadii bay ku degtay markaasay u caabatay oo warkiisa u sheegtay oo markaa waxay rabtaa Abdullah ibn Zubayr inay hooyadii u simarto halka erga ka dhigato isna wuxuu ku degay Abdullah ibn Zubayr wiilashiisii intuu ka daba yimid markaasuu isna wuxuu erga uga dhiganay Abdullah ibn Zubayr wiilashiisii hadhow markaa hooyadii ma ahayna cafwan waxay ahayd xaaskiisa ahayd markii muddo la joogay uunbu wuxuu arkay in isaga ergadiisu ay yara daciif tahay gabadhan ergadeediina ay yara xoog badan tahay oo malaha wiilashii odaygii aabahood waxba ka qaadi waayeen islaantiina ay liiliijinayso marka wuu gabiyay bay yiraahdaan wuxuu yiri rudal banuuna falam tuqbal shahadatu وشفعت بنت منظور بن زبانة ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا شفيع ارجيga ku yimaada isagoo marqaba ergeyga isagoo qaawan ku yimaada isku mid ma hawleeya wuxuu ka wada mar xaaskiisii daweeyaan gabadhan oo Abdullah ibn Zubayr wuxuu leeyahay saantiba wiilashii ka xoog badisay qisadan kale waxay yiraahdaan shucban u maraynayeen inuu ahaa waa niman arday ah meel fog uga yimaadeen marka waxay ku yiraahdaan waxaan rabnaa inaan xadiis ku wada akhrino wuu diiday marka kadibna muddo ku dul wareegeen dad fara badan bay ergo u dirsadeen oo culimo iyo dad u dhawaa wuu diiday waxba saantiisa markii dambe u yimaadeen markaasuu aroortii dambe u soo baxay oo yiri la kaalay markaasuu ku yiraahdaa sheekh Saudi intii horeba diiday wuxuu yiri marka beedkan uu tamathulay laysa shafii'u alladhi ya'tika muttaziran mithlu ash-shafii'i alladhi ya'tika uryan طيب على كل waxay yiraahdaan adigu markii dambe waa yeeshay adigu waa Abdullah ibn Zubayr baa isu maslaxay way yeeshay marka muddo qabay Farisdaqnin iska dhib badan buu ahaayo islaantii adigu islaamo kale oo ku dul guursaday yana waa maseertay muddo hadana waa la isqabtay markii dambe waxay ku heshiiyeen waxay ka codsatay marka inuu furo way ka codsatay wuu diiday muddo marka bariyeysay oo sasabaysay waagi dambe marka wuxuu kula heshiiyey waxaan ku furayaa haddaan gurigeyga ka bixin kow markaan ku furo kadib waa inuusan ninku guursan waa inaadan gurigeyga ka bixin malaha islaanta xoogayna way haysatay oo lacag bay siin jirtay wixii aad siin jirteen inaadan iga jarin oo waxaygiina ii sii wado biilkaygina ii sii wado baan ku heshiinaynaa wey hayay ku tiriyee laakiin anaa shardi baan wataa bay tiri maxaa shardigaagu wey waa inaad markhaati gelisaa bay tiri Xasan al-Basri waa inaad markhaati gelisaa kuma aaminsaniyo intaad tiraahdo waan ku furay waad hadda oranaysaa waan kugu soo waliba saddex waxa lagu heshiinayaa waxa weeye saddex dalqadood si marka hadda markhaati gelin aaminka ama qabay tiri hayay buu yiri ina mari in saaxiibkiisa si raaceen iyana koox bay soo kaxaysatay marka kii saaxiibkii markii intuu sii socday wuxuu ku yiri horoy Xasan al-Basri waa u socotay iniyow armad hadhow ka sharlaysa marmay uu yiri ina mari gabadhi si wacan banu salaatu u heshiin Xasan al-Basri buu tagay xalaqadiisa markaas aan kala fadhiyo wuxuu yiri Xasan al-Basri waxa la socota inaan gabadhii Nawaar ahayd saddex ku furay markhaati baan u nahay buu yiri sidii markaa ku soo kala tageen muddo kadib odaygii waa shalay gabadhii iyo markuu waxa la yiraahdo wanaageedii quruxdeedii iyo gabadh qurux badan waa shalay aad buu uga shalayn jiray markaa uu ka gabiyay nadamtu nadamatul kusa'i lamma غدت مني مطلقة النوار وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار حلي هي سيدي كسعي واجي والنظام وذا وش اللي بان وش اللي قبل نوار هذا فري سيدي آدم وش اللي حلي جيت في عنا وكله بان وش اللي يقولي طيب مرة لا بد سكوا ذا ماشين ولي هي
ندامة الكسعي والفرزدقي واي وحي وين تماديت هدي عاد سي جوجتيسو على اتعابها دارين تيدا ولم تكن هذا هاي منتهي متكريبتون هذا عن رهاق درقن فسوف تعروك وحكو هليلي دونتا على ائتلافها بابي انت بابيسو ندامة الكسعي نينكي كسعي لورنشري محارب بن قيس شليغيسي او كلا iyo الفرزدق همام بن غالب شليغيسي وكلا وكنت قد عويت من اخفافها خفي حنين ظافرا بالاناقي طيب وكنت waxaad ahaanaysaa marka jawaab shartigii hore labadii beed hore jawaab shartiga ku jira in halkan ku cadfeynaa kuntada طيب وكنت قد عويت من اخفافها وكنت waxaad ahaanaysaa qad عويت mid looga bedelsiiyay min akhfaafiha cugufteedii geelaas looga bedelsiiyay khufay xunaynin ninkii loo oran jiray labadiisii khuf dhaafiran xaal aad tahay mid ku guuleystay bil anaqi farxad mid farxad ku guuleystay xaal aad tahay marka hadii labadii khuf xunayn la soo noqoto halkan wuxuu leeyahay haddii aadan joojin halaha inaad dhibto dee markay halaagsanto marka halkan وكنت قد عويت من أخفافها وحولي مركي هلاكسنتو لبدأ خف لبدأ عقف أما عقف يدي أفرت يدي عقف واحد بدلهان وقع هذا يصير لبدأ خف حنين وكله لبدأ خف حنين وكله طيب أخفاف وجمع خف فأنا عقف تجيله خفي حنين النوى ومثنى خف خفاف جمعي سويهاي marka khufkan la xidheer dadku xidhaana khifaaf baa lagu jamciyaa khufkan geel cuguftiisa ahna waxa lagu jamcinayaa akhfaaf baa lagu jamcinayaa tayib khufay xunayn dhaafira bila khufay xunayn kani xunaynku wuxuu ahaa bay yiraahdeen nin shaqaan u leeyahay iskaafigu waa kaboolaha marka magaalada xiira ayuu kaboole ka ahaa kadibna maalmaha kamid ah nin reer baadiya u yimid bay yiraahdeen kabuu marka adugu waxbuu baayacay kabuu yiri iitol way murmeen kadibna wala heshiin waayay wala si kala tagay xunayn marka waa xanaaqay ninka uu doodi faraha badneed la doodayay baa ninkii xunayn ahaa kaboolaha uu xanaaqay wuxuu yiri marka maxaad kaga arbudataa talow ninkan dhibkii maanta uu geystay xeeladu marka uu digay wuxuu soo ogaaday ninkii maalinkii uu daba galay wuxuu soo ogaaday marka wadadu maraya iyo meeshuu aaday markuu caraabayo ninkan reer baadiya wadadii uu marayay buu soo ogaaday kadibna wadadii buu uga sii horreeyay laba khuf oo markaa dee kabool uu ahaaye uu tolay buu mid wuxuu dhigay wadadii uu marayay ninkani meel ka mid u dhigay kadibna intuu muddo socday buu haddana midii kale meel kale oo wadadii ka mid a dhigay marka labadan khuf waa labadii khuf oo markii hore lagu doodayo doodu ka dhalatay weeye ninkii reer miyiga ahaa isagoo neefkiisii geelaa iska wato iyo wixii u saarnaaya dee uu reerkiisa usoo qaaday ayaa wadadii soo maray kadibna wuxuu arkay khufkii oo xabad ah oo meel yaala xabad markaa de waxba ku tari mayso kadibna intuu eegay buu wuxuu yiri ma ashbaha hada bi khuf xunayn ninkii xunayn ahaa masaaka doodeeyay khufkiisii maxaa uga ekaansho badnaaday baalka halkan yaala waxa uu iska dhaafay ileen hal xabad waxba ku tari maayo kadibna markuu kii kale soo gaaray isagu markaa wuxuu sameeyay markuu kii kale halka hore dhigay wuu u gabaday oo wuxuu sameeyay meel ka khufka labaad meeshuu dhigay agteeda buu ku gabaday kadibna markuu kii labaad soo gaaray buu wuxuu xasuustay kii hore meeshii uu yaalay kadibna neefkii intuu meel ku xidhay buu kii hore intuu kii qaatay buu kii horena doontay uu soo maray intuu markaa kii hore ku maqnaa ayuu neefkii intuu furtay la tegay hadhow waa ninkii markuu soo noqday labadii khuf isagoo wata wax kalena aan wadan buu reerkiisa ula tegay wareebelo maxaa dhacay maxaa kugu dhacay khufay xunayn muunbaan maxaad la soo noqotay ku yidhahdeen khufay xunayn baan la soo noqday buu yidhi marka khufay xunayn waa maxay ninka inta dan wax loo diro ku soo khasaara wixii oo aan waxa la yiraahdo waxba ka soo faa'iidin ba waxay arabtu ugu mahmahda rajaca bi khufay xunayn ninkii la xunayn ahaa labadiisii khuf marka labadiisii khuf iyo sheekadiisana intaas ay ahayd way وكنت waxaad ahaanaysaa qad cuwita mid laga bedelsiiyay min akhfaafiha ugufihi geelaas aad baabi'isay khufay xunayn ninkii loo oran jiray labadiisii khuf akhfaaf iyo khufeenka meeshan khufkan jinaas baa ka dhaxeeya dhaafiran bil anaqi dhaafiran adigoo ku guuleysay bil anaqi farxad marka markuu qofkii geeri waxa la yiraahdo uu baabi'iyo ka baabao oo ka nadaamoodo dama farxayo oo ka murugoonaya laakiin dhaafiran bil anaqi halkan waa nooc ku digashaa weey
nooc ku digashaa yani adigu meesha inuu nagu nahno kale adaa waxa la yiraahdo ku liibaani doonaa wad oo kale mesela noocay tahay yani ku digashaa waad ku faa'iidi doontaa wad waayahay marka saas oo kale un buu ku wadaa waaye wuxuu yiri la anta adlamu min ibn zalim in kunta min ba'd biha lam tafil la anta adigu waxa tahay oo tahay adlamu mid ka dulmi badan min ibn zalim al harith ibn zalim ninkii loo oran jiray ibn judayma in kunta hadii aad tahay min ba'd wali hada min ba'd ila wali biha yadi lam tarfiq midan turin inta aan wax ku soo sheegay hadaadan wali u turinin geeli ninkii ibn zalim baadaba ka sii dulmi badan saas u leeyahay yani dulmigaagu mid wax loo dhigo ma haba geelan saad u dulmisay hatta ibn zalimna ibn zalim kama kala harith ibn zalim ibn judayma kutubtaad ka akhrin doontaan sheekooyin badan buu leeyahay oo dhaadheer waqtigiina ma saamaxayo nin aad u dulmi badan oo gradar badan bay yiraahdaan ayuu marka waa mahmah arbeedo waxay yiraahdaan fulan adlamu min ibn zalim buu ka dulmi badan yahay waaye la anta adlamu min ibn zalim la anta adiga waxa tahay hadaba waa tahay adlamu mid ka dulmi badan min ibn zalim ninkii loo oran jiray adlam ya zalim jinaas ba ka dhaxay in kunta hadatahay min ba'd wali biha yadi lam tarfuqi ama geeri lam tarfuqi aan u turin wali hadii aad tahay ninkaas hadba ka sii gardar badan rifqan biha qabla qasir zuba tayib rifqan utur biha geelas qad balaga wuxuu gaaray asaylu daadki azuba wuxuu gaaray godkii lagu qafaalanayay libaaxyada ayuu gaaray azuba waa jamcu zubya zubyadan waxa la yiraahdaa god lagu qafaasho god yaro meel yaro sare laga qodaya meel sare oo dhulka ka sarreeysa baa laga qodaya kadibna waxba la dul saaraya hilibna waa loo dul saaraya kadibna libaaxu markuu hilibka soo doonto ayuu godkii ku dhacaya marka waxa lagu qafaashaa libaaxyada lagu qafaashaa zubya la yiraahdaa jamcigiisuna waa zuba marka rifqan biha utub halahaas qad balaqa wuu gaaray asaylu daadkii azuba waxa la yiraahdaa meel godadkii lagu qafaalan jiray libaaxyada buu gaaray watasaca wuu ku ballaadhay alkharqu jeexninkii cala almuratiqi kii tulayay watasaca wuu ku ballaadhay alkharqu cala almuratiqi meeshan laba mahmaahood buu ku keenayo labada mahmaahoodba waxa marka loo taag waayo ayaa loo mahmaaha shayga marka loo taag waayo mid waxa weeyaan qad balaqa sayru zuba qad balaqa sayru wuxuu gaaray zuba marka zubyadu waa taa aynu sheegnay meel sare oo kur yaro sare oo aan dee buurna ahayn oo dhulka ka sarreysa baa laga qodaa halkaasuu markaa ka doonanaya godkaasuu markaa ku dhacaya ayib maxaa markaa laga wadaa halkaasuu gaadho daadku markuu dee aad u fara badan yahay oo markuu halkaa sare gaadho macnaheedu waa maxay wadaad aad u fara badan soo maaha wadaad waxba ka tegin weeye marka haddii la qad balaqa sayru zuba yani wadaad aad u xoog weyn oo wax kastaba marka wixii marka loo taag waayo oo dhibkiisii bato baa maxaa la odhanaya qad balaqa sayru zuba nacam ittasaca alkhalqu cala muratiqina waa mahmaah kale mahmaadan marka waa maxay muratiqu waa ka wax tolaya mahmaahdu waxay kaloo ku timaadaa raaqica ittasaqa alkhalqu cala raaqic kii wax tolayay marka kharqiguna waa jeexitaankii maradii markaa kii tolayay way ku ballaaratay jeexninkiiba ku weynaaday oo meel isaga keeno ayuu waayey maradu markay jeexanto waa lasu keenayo waa lasku qabtaa lakin markay aad u ballaarato meel lasaga keenin la waayo marka haddii in si kale lasaga isticmaalay in iska tuura maahaane hadhow dee tolniinkii waa wax badan ma faa'iideynayo ayib marka watasaca wuu ku ballaadhay alkharqu jeexitaankiina cala almuratiqi kii waxa la yiraahdo meelaan markaa laga gaari karaynin oo waxba laga qaban karaynin ay hawshaasi gaadhay ay macnaheedu noqonaysaa طيب وهب لأيديهن أيضا ولها متنا متينا ما خلا عن مصدقي فما لذعن حملت من مرة بذعن نودى بها في الغسق وهب وحد بكسو قادا لأيديهن إنه أسوغن يهي لغهيدا أيضا أودنا أسوغن تهي ولها إنه هلها أسوغن يهي كسو قاد متنا دبر متينا أدق ما خلا عن كم مرنين عن مصدق أتكان مصدق وشدة وصلابة أتكان عن كم مرنين فما لذعن haddii ay iyadu adag tahay oo waxa la yiraahdo uu degeel adag oo waxan u dul qaadanayaba uu yahay fama li dhu'ni dumar uma sugna xamalat ay qaaday min miratin ay miratu awood wax awood ah dumarka meesha saarna uma sugna awooddaas waa ay u leeyihiin bidhacanin socoto ay u leeyihiin socotadaas oo awdaa halaagtay biha iyada dumarka halaagtay fil qasaqi habeen la socdo ama habeen socodkii halaagtay qasaqu waa mugdiga habeenada waliba habeenka xilliga hore mugdigiisa qasaq la yiraahdo naam wuxuu leeyahay halkan kaba soo qaad meel kale uu rabo inuu wax ku tuso oo halahani haddii aad isleedahay awood bay leeyihiin oo socodkan faraha badan iyo jeedalkan lala dhacayo wayba u dul qaadan karayaan awooddooda awgood
de iyagu waaba waaya qiil haddaan halkaa kaaga raadino kuu soo tanaasulno markii hore o dhan waxaan uba lahayn iyaga laftirkoodii baanba u dulqaadanayne haddaanuba kuu soo tanaasulno iyaga u dulqaadan karaan gabdhihii meeshan saarnaa dee socodkaa faraha badan uma dulqaadan karayaan awoodna uma laha socodka habeen iyo maalin la isugu xidhayo waxa la yidhaahdo awood uma laha marka wuxuu rabaa haddii aadan u turaynin halaha gabdhaha saaran u tur markii hore oo dhanna xataa dee halahan uu soo qaadanayay oo turaalka iyo maagitaanka iyo waxaan muhiimaddu ma ahayn halaha muhiimaddu waxay ahayd gabdhaha saaran bay ahayd halaha saaran ayay ahayd ayib wuxuu yidhi wahab liaydihinna aydin wahab waxaad ka soo qaadaa liaydihinna lugahooda inuu u sugnaaday aydan awood inuu u sugnaatay alquwa nacam alaydu alquwa aydan awood inay u sugnaatay walaha halahaas inuu u sugnaaday ka soo qaad matnan dhabar matiinan adag kaasoo maakhala aan ka marnayn can mastaqin adayg aan ka marnayn waaya marka aydihinna iyo aydan waa janaas baa ka dhexeeya matn iyo matiinna waa lamid famaa liducnin ducnigu waa jamcu daciinaduna waa gabadha la yihahda gabadha lagu magacaaba ayib famaa liducnin dumar uma sugna xamalad ay qaaday geelaas halahaasi min miratin awood miradu waa quwada duu miratin istawa awood uma sugna bidacanin ay u leeyihiin awooddaas ay u leeyihiin bidacanin socoto awdaa halaagaya bihaa iyadoo fi lghasaqi habeenka mugdiyaashiisa waliba mugdiga xilliga hore ayaa qasaka la yidhahda ayib asa'ta waxaad u xumaysay hebelow xujo kalu ku oogaya wuxuu yidhi asa'ta war ninkii geela u heesayow yaa xaadiyal aynuqi waxaad u xumaysay lilgaydi gabdhihii walinuuqi halihii wali aniga isaa'atan waxaa la yidhahda xumaan ayaad xumaysay bitawbatin tawbad lam tumxaq aan laguba baabi'in wuxuu leeyahay xumaanta iyo dhibka aad meeshaa riday geeloo keliya maaha gabdhahoo keliya maaha geelii waad dhibtay oo gabdhihii saarnaa waa dhibtay oo aniga laftarkayga oo gabdhaha dee hunguri ka qabay waa ay dhibtay marka dhibkii waxa weeyaan wuu farabatay oo intaas oo jihoo kala duwan buu dhibkaagu gaarhaya waa dhib markaa maxay mutacaddi ah dhibka qaasirka iyo dhibka mutacaddigana kee sii xun dhibka mutacaddiga gudbayaa sii xun marka dhibkaagu waa dhib mutacaddi uu leeyahay oo gudbaye waxa weeyaan u kaadi hawsha wuxuu sa'ta waxaad xumaysay lilghaydi ghaydku waxa weeyaan غيداء وجمع غيداء غيداء waxa la yiraahdaa gabadha dibacsan ee jirkeedu waanu adkayn dibacsanaanta iyo jilaac uu ku jiro waana sifo gabadha lagu amaano weey tayib marka dumarkii dibacsanaa oo jilicsanaa oo aanu dulqaadanin adeegna lahayn geeran inta soconayna inay raacaan aan u adkaysan kareenin ayaad xumaysay walinuuqi halihina waa xumaysay jamcunaaka wali anigana waa xumaysay isaa'atan xumaan ayaad xumaysay intaaba bitawbatin xataa toobad haddaad ka toobad keento intum xalka aan lagu baabi'inaynin nacam low lam yakun bixubbi xilmi axnafi والمنقري قلبي ذا تعلقي حملت رأسك على شبلقنا مروعا به حداة العينق هل كان مركا هنشبات باب العمد انت هو رضا تصالين بأهي وحبو شيء هل كان هنشبه يا مركا وعليه لو لم يكن هدانو تشيري لهين أما لو لم يكن هدانو أهان لهين قلبي غيبو ذا تعلق مد كحريرسا بحب حلم أحنف نكي اللي أورنشري يوال من قري نكي اللي أورنشري لبدا بحلم كودي يدلقات كودي شعيل كودي هدوسا قلبي غيبو شعرين وكحريرسانين هذا سيدا سيجري لهين حملت رأسك رأس مدحاga waxaan ku qaadi lahaa على شبل قنا ورمها عاردoodan ku qaadi lahaa alqanana waxa weeyaan jamcu qanatin waa waranka shabana waa caarada hore wax ka saaradiisa la yiraahdaa tayib marka ala shabal qana intan madaxa ka jaro ban madaxaaga intan waranka caaradiisa ka taago ban saa ugu qaadi lahaa murawican anoo ku argagax gelinaya bihi madaxaagaas ku argagax gelinaya xudaatal aynuqi kuwa halaha u heeso nin dambe oo hala u heesa uusan halahaba dhibinin socodna ku dhibinin xaleejeeda iyo dirqina uusan ku dhibinin halkan marka waa wuxuu leeyahay waxaan ku cafiyo isaga ka daayayba xilmiga ahnaf aan ku jecelahay iyo min qari xilmigiisa qaysuna caasiman jecelahay ma ahaane waan ku dili lahaa markaas waliba dilkaaga waxa la yiraahdaa sida ugu xun intaan ku dilo sida ugu xun intaan madaxaaga jirkaaga kala jaro oo madaxaaga soo qaato bal madaxaaga meelaha la wareegi lahayo waxaan tusi lahaa inta geel raacdo oo dhan oo geel jireeyaal ah si aysan geel dambe u dhibin nimankaasi geel dambe aysan u dhibin way halkan markaa wuxuu inoo soo qaatay ahnaf iyo min qari laba nin oo isu abta ah weeye min qari waa qays ibn caas ibn sinan ibn khalid at-tamimi naam
marka minqarina waa wogi minqar baa la odhan jiray waana reer tamiim ayib axnafna waa alaxnaf ibnu qays oo waxaa abti u ah qays ibnu caasim qays ibnu caasimkan hore minqariga uu ku sheego baa abti u ah labada nin waxay ahaayeen saxaabada iyo nina waa taabici axnaf ibnu qaysna waa taabici qays ibnu caasimna waa saxaabi weeye ayib dad fara badan oo carabtu waxaa jira dulqaadka ay tusaalayaal u soo qaataan labada nin baa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ahoo caan ku ahaa waayahaas ashaju cabdiqays oo nebigu sal slam wakii ku lahaa ina fiika la sifatayni yuxibuhum allahu warasuuluhu ilahay rasuulkiisa ma jecel yihiin muxuu ahaa alxilmu walanaatu ayib xilmiga markaa caqlina waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa dulqaadka طبعا dulqaadkuna caqligu buu ka yimaadaa caqli badnaan buu ka yimaadaa ayib laakiin halkan si gaara dulqaadka looga sii jeedaa waxaa ka mid ah saxaabada dulqaadka caanka ku ah mucaawiyat ibn abi sufyaan radi allahu tacala canhu labadan markaan ku koobsanno qays ibnu caasim atamiimi jaahiliyadiina waa soo gaadhay islaamkana waa soo gaadhay nebigana sala allahu alayhi wasalam axaadiis ayuu ka wariyey axnaf ibnu qaysna isagu markii la weydiiyey yaad kaga dayatay xilmigan iyo dulqaadkan faraha badan abtigay buu yidhi abtigay qays ibnu caasim ayaan ka keenay oo wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah waxaan arkay qays ibnu caasim oo tulkii la fadhiya oo digirin xidhan xubwadan marada marka aad qofku fadhiisto rugo kor u taago digirin xidhan buu yidhi markaasaa waxaa loo keenay wiilkiisii oo la dilay iyo inadeerkii wiilkiisan inadeerkii wiilu adeer u yahay oo wiilkan dilay marka wiilkiisiba waxaa dilay wiilu adeer u ahaa oo walaalkii dhalay marka waxaa loo keenay kii dilay oo adeerka u ahaa oo la wado iyo wiilkiisii oo meyd ah oo la dilay wuxuu yidhi bartii uu fadhiyey xubwadiisii muusan furinin digrinkii u xidhnaa ma furinin sheekadiisii buu iska dhammaystay markuu iska sheeko dhammaystay ayuu ku soo jeestay nimankii waday kiibuu markaa la hadlay wuxuu ku yidhi waxun baa samaysay in adeerkaana waa dishay ilaahayna waa caasisay waxaa le fallaadhaad ganteena adigaa dib isugu ganay oo isku dhuftay intaasuu ku yidhi isaga wiiluu dhalayoo markaa meesha joogay ayuu wuxuu ku yidhi kaco in adeerkaa xadhigga ka fur hooyadaana waxaad walaalkaana aas hooyadaana 100 geela u gee dhib baa ku dhacaya oo magtii markaa wiilkeedaas ah u gee buu ku yidhi khalaas sheekadiina intii ku dhameeyey ka waran marka sadaqaad cajiiba ma dee wiilkaagiioo la dilay oo kii dilayna la wado waxay yidhahdeen waxaa suuragal inuu qofka aan dulqaadka lahayn intuu kaco kana yidhahda raaciya hadaba isna raaciya laakiin isagu markii horena muusan isku dhibin oo hawshiisu iska sii watay markii dambena si yaroo dabacsan kiina uu iska sii daayey muusan wax kale ku samaynin intaa yarun buu sheegay kadibna waa iska sii daayey marka waa dulqaad aad u cajiiba weeye waaya axnaf ibnu qaysna sidaasoo kale un buu ahaa daxaak magaciisa caadiga waxa odhan jira daxaak ibnu qays cumar ibn khataab radi allahu tacaala canhu waagiisii ayuu xiliyada ugu caansanaa ka mid ahayd damiiri waxaa jira manduumadii aan hore idinku sheegay oo رموز الكنوز الذي برز بروس واحسن بروس ساسر يعني رموز الكنوز الذي برز بروس واحسن بروس وحليه والحلم لا بد له من تجربه وهو دعامه العقول المعربه فلحنف ابن قيس بالقيس اقتدى فلحنف ابن قيس بالحكمه اقتدى بقيس بن عاصم لما اهتدى قيس بن عاصم كما قال بها كذب الرسول صلى الله عليه وسلم لما اهتدى ساسوري واسمع الفاروق في بالمدينه حلما سمى البجاله والسخينه طيب وكان يمك على بدن سؤال فربنا بيقبياكم مركب سوقاتان انت سنعرفنا وحول مركب ناظمكم لو لم يكن بحب حلم أحنف لو لم يكن هدانا أهان لهين لحدوثا أهان لهين قلبي جيبه ذات تعلق من حريرسا هدانا أهان لهين بحب حلم أحنف نينكي لورنشري أحمد بن قيس تابعي جها طلقات كيسي هدانا جعلين يقول من قري وحلم من قري هدانا جعلين حملته وحنكو حنباري لها كو قادي لها رأسك مدحاga على شبل القناة ورمها أفكودا كو قاري لها مروي أنا نكو أرجع حقرينيا به مدحاga حداة الأينوقي حلها كو وهيسا أنا كو أرجع حقرينيا وحوري فسوق فلا نعيم عوفك ولا أمن خوفك ولا تدري فقي halkan waa habaare marka hore waxay ahayd goodi marka wuxuu hadaanan hadda ku dilaynin oo xilmigi ahnaf dulqaadkii axnaf iyo dulqaadkii qays aan jecelahay awgeeda aan iskaga kaadaynayo habaarkaasuu raaciyey wuxuu yidhi fasuq haddaba aroori
halahan falaa nacima cawfuka xaalad kuma wanaagsanaatee arrinkaagu ma hagaago saas way macnaheedu arrinkaagu ma hagaago walaa amina khawfuka cabsidaaduna ma aamin noqoto walaa tadranfiqi mana dheeraysid saddexdu marka waa habaar wuxuu leeyahay arrinkuma hagaago cawfku waxa weeyaan albaalu washanu alcawfu albaalu washanu marka carabtu ninku markuu reerkiisa la aqal galo ayaa waxay yidhaahdaan ay ugu duceeyaan nacima cawfuka arrinkaa ku hagaag waa duco markaa ninku reer samaysto la aqal galo ay ugu duceeyaan weeye isagu markaa wuu nafiyey oo wuxuu leeyahay arrinkuma hagaago walaa amina khawfuka cabsidaaduna ma degto oo kale way macnaheedu noqonaysaa yani ma aamin noqotid weligaa walaa tadranfiqi idranfaqa waxa weeye mashan sariican si degdeg u socdo marka walaa tadranfiqi marka la yidhaahdo degdegna uma socotid waa habaar weeye ilaa qofku siduu u rabo marna inuu u kaadiyo si qunyaro u socdo wuxuu u rabaa marna inuu si degdeg u socdo marka si degdeg uma socotid marka lagu yidhaahdo waxa weeye weligaaba gaabi waa nooc habaara weeye ayib fasuq marka aroori buu yidhi socsii kaxee falaa nacima cawfuka arrinkaagu ma hagaago walaa amina khawfuka cabsidaadu ma degto ma aamin noqotay walaa tadranfiqi mana dheeraysidi socsii buu yidhahdaba wadac iska daah jeedalkan iyo fooridan iyo waxaan faraha badan aad ku socodsiinaysa iska dhaaf wadac daah yasuuqu waxaa la yidhaha yasuuqu ha arooriyo bacduhaa barhkeed bacdan barhka kale yasuuqu ha kaxeeyo bacduhaa harahan barhkeed bacdan barhka kale faqad danaa waxaa soo dhowaaday wuluujuhaa gelitaankeeda biwacrin bariiq inay gasho wacrin adag dayiqin cidhiir ah wuxuu leeyahay halahan markaa ka jooji dhengadan badan iyo dabakagalkan iyo cararsiintan iyo waxaan ka jooji iyadoo ha iswadeedaa waayo waxay u soo dhowaatay meel yaroo gol ah inay marto meesha goshaana markay marayso oo cidhiidhka ahna haddii aad sidan u socodsiiso foodhidii waxaa la yidhahdo geelu ku cararayana soos muxuu samaynaya wuu isjiidayaa geeli marka waxaa la rabaa inuu geeli laba iyo saddex iyo mirmiriyo intuu u mari karayo wadadan yar u maro marka iyada iswadaysee daa buu yiri cagta udhig wadac daa yasuuqu ha arooriyo bacduhaa barhkeed bacdan marka kale faqad danaa waxaa dhowaaday wuruujuhaa gelitaanka gelayso biwacrin ay biariiqin ariiq wacrin adag oo dayiqin cidhiidh ah waltattakhidnii raa'idan waltattakhidnii waxaad iga dhigataa raa'idan mid sahan iga dhigo aniga fainanii anigu waxaan ahay duu khibratin mid khibro u saaxiib ah oo weliba khibro u leh bimubhamaati turuqi wadooyinka qarsoon ama xidhan labadoo lagu macnayn karaa bimubhamaati turuqi wadooyinka xidhan ama qarsoon ayaa waxaan u leeyahay khibro in harithat haddii ay gaajooto in harithat hadday gaajooto callaftuhaa waan calaf siinaya weliba calaf siinta callaftuhaa waxa weeyaan waan ugu celcelinaya calaf siinta walow bimaa jamactuhu walow kaanad waxa aan ku calaf siinaya haba ahaado bimaa jamactuhu wixii aan aruursaday oo min dahabin dahab ah iyagoo waraqin fido ah xataa dahab iyo fido waxaan haysto u aruursaday xaaladahayga adag inaan kaga baxo ayaan ku calaf siinayaa oo amase sadiyad haddii ay haraado awratuhaa waxaan ku soo aroorin min admuci iyadoo dhiiggayga ilmadayda ka mid ah nahra ubullati ubulla webigeedii ayaan ku soo aroorin iyo wanahra jillaq oo dimishaq ah webigeedii baan ku soo aroorinaya halkan marka wuxuu leeyahay ila tasho oo waddadaad marayso iyo qaabkaad u kaxaynayso iyo waxaasoo dhan igala tasho aniga oo marba i weydii geela ka war hadda seen u kaxaynaa waxaan ku odhanayaa markaa waddadani waa waddo adag geela qunyaro wad waa waddo halow ah si yaro dedeji anaa markaa kula talinaya waxaad iga dhigataa raa'idkuna asal ahaan waa maxay qofka sahankaa weeye oo carabtuna waatay odhan jireen raa'idu laa yakdibu ahlahu ayib waltattakhidnii raa'idan waltattakhidnii markaa iga dhigo raa'idan waxaa sahan iga dhigo fainanii anigu waxaan ahay duu khibratin khibro mid u saaxiiba bimubhamaati turuqi waddooyinka xidhan ama qarsoon aan khibro u leeyahay marka geelaasina si kasta waan ugu hagarbaxayaa buu leeyahay maaha waddada keliya inaan kugu hanuuninaye geela laftarkiisa aad adigu dabaabiisa anigu waa u hagarbaxaya oo saad ugu hagarbaxaysaa waxaan ugu hagarbaxayaa wax allaale iyo waxaan adduunyo leeyahay si aan u gaajo tiro iyada waan ku bixinaya hadday gaajooto dahab iyo fido waxaan u dhigtayba inaan ama ku guursado ama maalin uun deyn iskaga bixiyo ama si uunaan carruurteeda haddaan doono u dhigay wixii o dhan intaan soo kaado baan iyada calaf uga dhigaya oo weliba ugu celcelinaya inay ka dhergeyso waaye hadday haraadana ilmadaydaasaan webi uga dhigaya oo ka waraabinaya kuleeyahay ilmadaydaas intaan u qubo baan webigii jallaq iyo webigii waxa la yidhahdo ubulla uga dhigaya markaasaan taa ka waraabinaya marka ilmadaada miyaad ka waraabinaysaa maya macnaheedu waa maxay wax aan la awoodayn xataa waa u samaynaya waxaan la awoodi karin xataa awgeed waan u gelayaa geelaas marka waxay ku tusinaysaa maxay danayn aad u dheeraad ah bay ku tusinaysaa
وحول ولتتخذني قد رائدا فإننا نقول ذو خبرة من خبرة وصاحبة بانها بمبهمات الطرق ودوينك حرم أما قرصون إن غرثت هدي أي قاتشوتو علفتها وان علف سين نعم ولبو وعي العليم ولو بما جمعته وحنكو علف سين يهب هذا حول بما حولها هذا يهمتي جمعته أنا ربصدي أو من ذهب هي وورق في الضاء نعم أو صديت هديها الرادو أوردتها وحنكو أرورين من أدمعي حالة كمتهاي وحنكو سأرورين يا من أدمعي حالة المضي لا أنقبة كمتهاي نهر الأبلتي أبلا وبيجدي ونهر جلق وبيجدي طيب جلق مركب دمشق أبلنا وحويا مركي وهذا بصرة كمتها ومين هذا بصرة حافظها بصرة كمتها لكن مركي وروحي هي تولي وشرته أفر فرسخنا وحنا نقول 20 كيلومتر أما صدق 4 كيلومتر على قولين في فراسخ ذي مسمى البنقونية طيب مركا بس أبلنا وبصركوا يلا وبصركوا يلا كلنا وبيتكوا يلا ماشي اللي دمشق وايه. Okay, George.